waxaa jooga beerta waxaa jooga niman shaqaale ah oo Yamaniyiin ah oo beeraha si loo sameeyo yaqaan isagana oo su'aalaan weydiin doona haddii Ilaahay yiraahdo aadaanka iyo salaada baxaysa waxa weeye waa salaada duhur oo masaajidka uu leeyahay weeye hotelku waa adigu hotel yaan ku dhigna waa resort waa meel dhan waa aseento dhan waa kafeega hadda kani jirka managerka wuxuu na tusayo waa kafeegi weeye geedkan waa geedka kafeega ahaa weeye kafeega waxaa la rabaa intii la beero inaan hataa kafee looga doonin banaanka hotelka ayaa la rabaa oo halkan looga soo guro كفيجو صدق شيء شارو نقول رأس كفيجو وحو نقطع الصاص إذا نحسب الدراسة فاينل يوكا كفيجو نكا ونقني حل كل استعمالي ما شاء الله ما شاء الله مركا مرحلة وكفيجو سمر صدق نوع حسمرات أنا عسان حسن نقطع هذا نوكا مركا صار استعمالي قلفت سنوات تي لورني يحوها خنشركة سنوات كفيجي يبارك واحد يجري اوكي جيت كافيه هون انت سدوا كافيه فرميت انت مثلا سومالان كافيه وكبحيا مeel kasta wax laga beeri karaa Ethiopia waxa laga beeri karaa way si hadlayaan oo baxa si la isticmaalaa oo aan markii qaar ku isticmaalaa xiliyada marka kafeega ma aha Ethiopia kaliya meel kasta ka bixi karaa ka bixi karaa dadku waxay aaminsan Ethiopia ku baxo laakiin waa naga beernay wana looma baahan doona hadhow kafee caadi oo meel laga soo gato hadhow waxa u baahan tahay just in la helo si loo yaraa habeen lahaa finally waan dhamaystiray mashiinka lagu shiidi lahaa waxa in la helo bas inta inagu dhaamaan waxa yaanu inayno inta buniga laga dhigay inta yar la wax yara no more time chemicalki yara lagu dar lahaa waxa in la helo inta weeyaan ma sha Allah marka dhinacaan oo dhan waa kafeegi weeye waxaad arkaysaan waxa safan oo dhan waa kafeegi weeye oo tijaabo lagu sameeyay oo la ogaaday in laga beeri karo dhul kasta meel kasta oo Soomaalida dhulkeeda kamid ah Soomaaliland baad laga beeray waa kaas waxaan lagu isticmaali doonaa hotelka markii macnaha uu soo bislaado tuu Ilaahay yiraahdo هاي ما شاء الله ما شاء الله waa very fruitful business oo loo baahan yahay dadku inay ogaadaan in dhulkani uu yahay dhul dihin oo aan wax walba laga beeran karo lagu noolaan karo waxna aan looga baahnayn dibadda marka waa beertii geedkan muxuu ahaa liin macaan ما شاء الله اوكي ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن وهذا beertana dhex socday waa beertii Royal Plaza and Resort oo ku yaala Somaliland magaalada Hargeysa marka sida oo la socdo insha Allah هذا ماشي هذا ركتان برادر كوحي شيء إن وحول بالجو بيردونه وحي جيد جاب هودن أما هالنقطة بقول كي هالنقطة أما السلر كي هالنقطة أما نياني ده هالنقطة بس الشيء وحيابات نرجو وين الله تلاقي وحيابات دحها ودحيا مالها جيدها الروز كا أما لاين كا ودحيا جيدها أيه وحلا باشا ورك دندمة اللي هذا باشا دندمة اللي هذا إحنا هلا وصل قلي سبك وطاودان دندمة ده هو هاند ميد دندمة معها ميد كاس ما يسنت معها and ودندمة دي سومالي أورنجين دندمة أورنجين عيال كبير يا أبورك سمين جري مركا هاند ميد واي مركا سيدة كلوت صو إن دندمة يجري الصومالي يا الله وين لا تس دحضاني وجيدها ببايق وي سدا ولا صعد أيضا جيسيد وحلو بيردونا محوها نيايدي بسشي يا وحلو بيردونا
shamaamkii waxyaalihii So, hadda marka expert of farmers baa jooga oo doonaya inay waxyaabahan aad u qurxiyaan ka shaqeeyaan walaalo yemaniyiin oo ka yimid yeman ayaa jooga dhowr su-aalood baan weydiin doonaa iyagana ku saabsan beerta iyo siday tahay. asalaamu calaykum. كيف امورك؟ ايش اسمك؟ صالح. صالح. صالح بن من؟ صالح بن من؟ علوي محمد. علي محمد. وانت كمان؟ عبد الله. عبد الله من اليمن ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. كم لك هنا؟ والله عادنا جينا. عادين جن؟ متى جئت؟ شهر؟ ايوه. وانت كمان؟ كلنا يعني. كلكم؟ ايوه. كلكم جئتم من شهر؟ كلنا لا شيء. كيف اليمن؟ مش تمام الان؟ الحرب ودمار. ان شاء الله الله يصلح اموركم. الله يصلح اموركم ان شاء الله وامورنا كمان ان شاء الله. كيف ترى يعني في هذه المدينه؟ المدينة كويس حالي ما شاء الله. ما شاء الله. منطقة حلوة. انتم سنيين او سنيين انتم؟ شيء جيت لعمل ما يخصك شيعي ولا سني. دخل بالاحزاب لانها دمرت البلاد. دمرت البلاد ما تستوى هذا ها؟ مش مشكله ان شاء الله مش مشكله. عفوا. السلام عليكم. beertii baan ka soo baxay waxaan sameynayaa insha Allah my final clip that I was trying to finalize and waxa weeye this is the farm of the hotel and there is over 2,000 trees different kind of trees that's in there, cafes, mandarin, all that kind of lemon, different kind of lemons, the sweet one, the sour one, all kind of trees that you can name it, papaya, you can name it, tomatoes, everything is in there. So what they're trying to do is they will not need some kind of fruits that they will export from outside or just to get from the outside to use for the hotel. They will use the organic food that they farmed and just cropped in here. They harvest from here and they will use it in the hotel inshallah, and they will use their own goats. They have around over 100 goats in the cage, and they will use that for the hotel. They will not buy goats from outside. They have their own goats, they have their own farm, they have their own resorts, and they have their own even masjid, and they have their own farmers, and they have their own designers. So you can see even the hotel's furniture has been designed by somebody who's an engineer who knows all this kind of chairs and tables and all that stuff. We already just a video clipped for that kind of video, and I will show you later on inshallah. Marka sida ula socdo inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.